madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa dhambaal tacsiya u diray 6 qof ee ku geeriyooday shalay toole roobabkii raxmaadka ay ka daayay gobolka Awdal gaar ahaan deegaanka Dilaa dhanka kale waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ilaahay uga bariyay 15 qof ee ku dhaawacmay roobabkaasi in ilaahay caafimaad sareeca uu siiyo waxa war-saxaafadeedkan warbaahinta ka hor akhriyay afhayeenka guud ee madaxtooyada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Shamac mudane Axmed Maxamed Siiraanyo isagoo ku hadlaya magaciisa kan dawladda iyo kan shacabka Soomaaliland wuxuu tacsi tiiraanyada u dirayaa qoysaska ehelada qaraabada iyo shacabka Soomaaliland ee ay ka baxeen dadka masiibada daadadku ku dileen degmada Dilaa ee gobolka Awdal sidoo kale wuxuu madaxweynuhu dhambaal ugu damqanayo u dirayaa qoysaska ehelada iyo qaraabada dadkii ay jeclaayeen ku waayay ee ilaamka lagu laayahay ee ay sababeen daadadkaasi ka dhacay ee ay sababeen roobka mihigaanka ee ka dhacay degmada Dilaa ee gobolkaasi Awdal madaxweynuhu wuxuu amray mas'uuliyiinta qaranka hay'adaha ku shaqada leh ciidamada qalabka sida inay ka qayb galaan gurmadka baadigoobka dadka la laayahay iyo sabata bixinta iyo wax u qabashada dadka ku dhibaataysan ama dhibaatada ka soo gaadhay masiibada daadadka kuna maqan in la soo helo raqiyo ruux si degdegana loo soo sugo raqiyo ruux dadka la laayahay haddii alla yiraahdo madaxweynuhu wuxuu ilaahay uga bariyay inta ku dhimatay daadadkaasi inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo kuwa la laayahayna ilaahay idankii si dhaqso ah loo helo iyagoo bad qaba mudane Axmed Maxamed Siiraanyo wuxuu yidhi masiibada dadka haleesha iyo wanaagga ay helaan labadaba waa kuwa xagga Allah ka qoran si ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku sheegay quraankiisa ilaahayna waxaan ka baryaa ayuu yidhi madaxweynuhu inuu samiriyo iimaan saadiqa inaga siiyo bedel khayr qaban aynu ka helo halkoodiina ay noo soo galaan bedel khayr qaba dhinaca kale madaxweynuhu wuxuu amray in la baajiyo shirkii toddobaadlaha ahaa ee maalin kastoo khamiisa la qaban jiray maanta oo kale ee golaha wasiirada isla markaana la isu qaybiyo mas-uuliyiinta qaranku ay isu qaybiyaan labada dhinac ee kale ah ka qaybgalka janaasada Dr. Cabdi Awdaar Cali Allah u naxariiste ilaahay naxariis janaasiye oo ay u baxeen wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici kana mid yahay oo weheliyo wasiirka madaxtooyada iyo mas'uuliyiin kale halka dhinaca muxuu ahaa Dilana iyo gurmadka daadadka iyo masiibada dabiicigana ay u baxeen wafdi ballaaran oo isugu jira hoggaanka xisbiga kulmiye iyo wasiirada ka mid yahay wasiirka diinta iyo awqaafta oo iyaguna u boqolay dhinaca Dilaa isla markaa sida madaxweynuhu amray gurmadku wuxuu noqon doonaa mid ballaaran gaar ahaan ka daadadka masiibada daadadku ay keeneen wuxuu noqon doonaa mid ballaaran oo sabata bixinaya isugu jira wax u qabasho dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay